ilmahaaga 20 daqiiqo inaad la sheekaysato maalin walba bal isku day 20 daqiiqo kuma jirto baa la min غير توجيه ولا نص في waxbarashada kala hadlin homework kala hadlin 10 kala hadlin just kaliya sheeka ka dhig sheekayst 20 daqiiqo waqtigaaga dhan 24 hour 120 ka siin weyd طيب لمبر 2 waxa kamida التعبير waxaad u sheegtaa ilmahaaga inaad jeceshahay maalintii u fiirso waxa laga yaabaa la yaabto 5 jeer ilaa 10 jeer waxaad ku tiraahdaa waa ku jecla jumcadii ku horeysay waxaan joogay Toronto masaajidka Khalid marka waxaan ku yiri bal tatbiiq ku sameeyay practice arintan habeenkii muxaadaro aan ka soo jeediyay aaba ayaa intaan fadhiyo muxaadaradu socotay wallahi weegii hore dhacday qisadaas intii la fadhiyay baa waxaan ku yiri bal hadda waxaad ku dhahdaan waan ku jecelahay ilmihiin u sheeg hadda intaad fadhidaan aaba wuxuu u qoray gabadhiisii aabo waan ku jecelahay waana ku duceeyaa isla second daqiiqadii waxay u soo jawaabtay aabo waan ku jecelahay waqti walbana waan ku duceeyaa markaan muxaadara ka baxay buu yimid wuxuu tusay message kale oo uu u diray 25 maalmood ka hor oo uu ku yiri aabo isoowa kelimadaas oo adeegsan aabo isoowa 25 maalmood gabadhu dhalimeyn uu jawaab hal kelimo kuma dhig markaan iri hadda bal isku day yaa wuxuu ka bilaabay aabo waan ku jecelahay waxay tiri waan ku jecelahay aniguna isla saacadii marka macnay sameynaysa goorma kugu dambeysay ku tiraahdo waxa la yiri niman baa waadhow laga qaaday interview waxa la yiri kulligan waxa la idin weydiinay hal su'aalo isku wada mid ah goorma idin ku dambeysay xaaskiina ku dhahdeen waan ku jecelahay marka mid wuxuu yiri maanta midna shalay midna darab mid weeygi hor mid sanadkii horaan markuu yiri waa ku jecelahay waxa la yiri hadda bal message kan u wada dira kulligan message ka wuxuu ahaa waa loo dhiibay waad ku tiraahdaa qof walba xaaskaaga waan ku jecelahay يعني سيدا عين نوح وخلدينا بان ربعنا قطصه إننا واحد بدن فجودا بانوس أصلا إننا كنا إننا كلفوجان هذا الرير تاين إننا كلفوان تكاني هذا أوبا تاين إننا كلفوان توارد كأكاني مسج كيبه ولا الدرين كاسوني ولا بيرواك وجعله تيو الرئيسي أو سوج مركب حالة جوابه إنكوا آخريننا نقول بو بسوج سمايا هذا آخر جواب تنيك على السوق ده كان مقليا قبل دو الرئيسي وحي سوق قرطي miyaad soo waalanaysaa maanta tii ku xigtayna waxay qortay ma hooyadaaba inoo soo socota tii saddexaad waxay tiri ma waxoogaa lacag baad iga rabtaa jawaabo noocaas ah kulligood soo wada qoray 10 jawaabood oo kala duwan bay soo qoreen mid kale waxay tiri oo wacajab badnayd haddaad ii sheegin message-kan cidaad u dirtay guriga maanta imaan maysid يعني يدكم مودي وان كجعله لكن تو كلا سورغل انو كيرado وان كجعله سوما marka waxa soo baxay natiij bal rabo marka maxaa ka yimid inuu san midkoodna adeegsan been inay ahayd eragay lahayn shalay baan ku iri waan ku jeclaa way lama yaabteen sooma midna kuma oran xaaskiisa waan ku jeclaa marka caruurteena aan ku dhahno waan ku jeclaa 5 jeer ilaa 10 jeer bal aasaarkii reedka ka yimaada tijaabi adigu maanta insha Allah caawada tijaabi waxa inta ka duwan 5 jeer ilaa 10 jeer amaan ilmaha yarka waxaad ku amaantaa ficil sameey homework ka shaqeeyay 10 soo bartay wuxuu sameey ku amaan ama waxaad ku amaantaa ashakl alkhariji muuqaalka ka muuqda sidoo uu labisan yahay soo timaha u soo jartay sidoo ilmuhu wiilkaaga sidoo ku amaan amaanta oo amaan waxa laga yaabaa tiraado ma istusba maxaa loo amaanaya waxyaaba ajabta badan tijaabine adiga weyn hadii lagu amaano waad kala fadfadaysaa kulligan amaanta waan jecelahay xaqiiqo way arintaas ruux aan jecelayn amaanta ma jiro marka ilmaha yarka maxaa ma leeyahay taasiirka ku sameynayso طيب waxa kamida waxyaabaha loo rabno inaan ku toosino nasaaixda 2 jeer aaba waliba ama hooyo waliba ilmahooda 2 jeer asbuuci guriga bal kala bax oo nishaad ka baxsan guriga la sameey wuxuu rabaa noqo ilaahu ma socod soo sameeysan kubada la soo ciyaar caruurtiina kubada magaaladeena meelaha caruurta lagu ciyaarsan raac waalidkii hooyada raac la soo arag
طيب waxa kamida ee laba jeer asbuuci reerku ha isla cuntay carruurta la fadhiiso cuntada way ka duwan tahay mid hadda guriyaha laga sameeyo laga yaabo wiilku inuu mar yimaado cunteeyo gabadha itimaado waxeeda iska soo ridato ma waxa laga rabaa hal habeen oo la balansan yahay reerka dhan ay dhinac ka soo wada fadhiisanayaan xeerada afarta dhinac laga fadhiisto soo xusuusataan waagi hore sidii loo wadaagi jiray cuntada dhinacyada laga fadhiisan jiray طيب la fadhiiso carruurtaada meel degan adigu